bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan qodobada wararka idaacadda risaale maanta idin heesa dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka oo ka guuray xarunta madaxtooyada ee filla Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka oo beeniyay inuu buray mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo aqalka sare oo maanta meel mariyay hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda naafada qaranka faahfaahin ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada Jabuuti ku dhexmaray gobolka Hiiraan dowladda Kenya oo xabsiga dhigtay Soomaali loo haysto afduubka haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga dad ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Mexico iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo qarka u saaran in kalsoonida lagala noqdo markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha 12 sanadka 2018 intaad maqasheen qodobada risaalo ugu waaweyn ay ahaayeen u diyaar garoob dhageystayaal warkii oo maanta intaas ka faahfaahsan wariyaheena Maxamed Cabdi Cali ayaa soo saaray warka duhurnimo aynu ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deganaa xarunta madaxtooyada ee filla Soomaaliya ayaa maanta ka guuray dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu beeniyay inuu buray mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faahfaahinaya warkan xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho u xaqiijiyay in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo tan iyo xilligii la doortay ku sugnaa gudaha madaxtooyada Soomaaliya uu ka guuray maanta halkaas isla markaana uu guuray guri ku yaala agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sheegay in arrintan ay timid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu diiday gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in ay la kulmaan xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa degay guri hotel ah oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde kaas oo lagu magacaabo Shabeel isla markaana horay halkaas waxa uu deganaa jiray xisbigii Daljir ee hogaami jiray Axmed Macalin Fiqi ee ku biiray xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa sax waaye warkaas maanta ayuu gudoomiyaha baarlamaanka ka guuray gurigii ka deganaa dibada kadib markii xildhibaanada cadaadis ay la kulmeen oo aksas iyo inay u tagaan oo ay arrimaha mooshinka socday ay kala xaajoodaan ay suurtagal u noqonaysay gudoomiyahana wuxuu dhexdhexaad u yahay baarlamaanka wuxuu mas-uul ka yahay yani baarlamaanka arrimaha ka socdo haddii xildhibaanadii qaar la celiyey oo la yiri yani ma imaan kartaan qaarna loo fasaxay bilada inay galaan wuxuu doorbiday inuu ka guuro waana ka guuriyaan saako ka guuri guriga ka deganaa bila Soomaaliya wallahi dee hal aan ahayn balsheek haddii xildhibaanada loo diiday bila Soomaaliya oo ah guri ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeya mas-uuliyiinta u dhaxeeya xildhibaanada u dhaxeeya haddii aad aragtay adiga naftaada oo aad weliba ka aragtay iyadoo video laga soo duubay xildhibaanadii qaran ee mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed ka saarnaayeen loo diiday albaabada laga xirtay fikirkooda darteedna loogu diiday yani waa ujeeda dowladnimada meesha ay maraysa hal kaleeto oo aan ahayn gudoomiyaha inuu guuro maba jiraba dee moogtahay ama inaysan yani meeshii gudoomiyaha aysan u tegin oo cadaadiskaas la saari darteed yani meeshiisa asagana isaga jiro asaga iyo xildhibaanadana ay kala go-aan ama inuu xildhibaanadii uu yani u ahaa gudoomiyaha inuu meel ay ku qaabili karaan ummadana u dhexaysa xildhibaanadana u dhexaysa wada dhexaysa uu taga cid walbana ay ugu imaan karto labadaas mid kala dooray ahayd marka waxaa u sahlanatay oona yani midii saxda ahaydna noqotay dee in yani uu ka guuro si cid walba ay ugu timaado gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray maanta warqad uu kaga hadlayo warqadii shalay ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka taasoo ku aadaneed inuu buray mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka oo wareegta xafiiskiisa ka soo baxday markii uu ka guuray madaxtooyada waxa uu sheegay in mooshinka ka dhanka madaxweyne Farmaajo uu yahay mid sharciga waafaqsan isla markaana baarlamaanka la hor keeni doono isagoo sida uu risaalo u xaqiijiyay xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed warqad buu saaka soo saaray maxaa la yidhaahdaa gudoomiyaha uu leeyahay mooshinkii waa sidiisii 92 qofood baa soo gudbisay sharciga uu qabo waxaana la marayaa qaabkii loo maareynayo si waafaqsan dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka warqadaas hadday soo baxday yani gudoomiyaha wax yani haddee warqad nin xafiis ka shaqeeya uu soo qor uu yidhaahdo mooshinka waa buro kuma buro
xeer hoosaadkana mooshinkii cid yani aan gudoomiyaha ahayn oo lagala tashanayo hadda ninkaa warqada soo qora waa ninkii ka shaqaynayay xafiiska baarlamaanka gudoomiyaha ninkii la shaqaynayo gudoomiyuhu aanan ogeyn oo uusan la tashan baa warqad lagu qasbay inuu soo saaro uu saxiixa loo keeno marka wadankii meeshaasuu maanta maraya gudoomiyaha warqada soo saaray shaaki akri warqada waxaa ku qoran in yani mooshinkii sidiisi u yahay sidiisi u taagan yahay dariiqadii loo mari lahaana la marshin doono hadii ilaahay raali ka noqdo. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa saarnaa cadaadis tan iyo markii uu qabtay mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya 9kii bishan waxaana soo baxay warar kala duwan oo sheegaya guriga gudaha madaxtooyada ee Villa Soomaaliya uu ka degan yahay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in laga jartay korontadii iyo biyihii taasoo dhibaato badan ku abuurtay ciidamada ammaanka ee ilaaliya guriga gudoomiyaha iyo waliba mas'uuliyiintii kale ee gudaha ku sugnaa. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa horey u sheegay in gudoomiyaha uu xabsi guri halkaas uu kaga dhigay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iyo haddana ma jiro war rasmi ah oo gudoomiyaha golaha shacabka uu ku xaqiijiyay inuu madaxtooyada Soomaaliya uu ka guuray kadib markii laga dhigay xabsi guri. xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda naafada qaranka. wariyaheena Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya warkan. senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda naafada qaranka kaas oo horey uga soo gudbay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. golaha aqalka sare ayaa sharcigan waxa ay maanta wada marsiiyeen aqrintiisa 2 iyo 3. gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Samsam Ibrahim Cali oo la hadlaysay senatarada inta aan la ansixin sharciga ka hor ayaa waxa ay ka codsatay inay ansixiyaan sharcigani si aan u ansixino hindisa sharciyeedka hay'adda qaran ee dadka naafada ah ee maanta maraya akhrintii 2 ujeeda la istusay waa in aan u meelmarino sharciga kor ku xusan si waafaqsan xeer hoosaadka golaha. waxaan idinka codsanayaa senatarada sharafta leh ee mar 2 iyo mar 3 baahida loo qabo sharcigan daraadeed in aan ansixino guud ahaan golaha guddiga aan gudoomiyaha ka ahay idinka codsanayaa guddoonka senatarada sharafta leh in sidiisa lagu ansixiyo sharcigan idinkoo aad iyo aad u mahadsan aan rajeynaya in codsigayga aad tixgelin doontaan. senatarada cod gacantaaga u qaaday sharcigani ayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu ku dhawaaqay in la ansixiyay hindis sharciyeedkani. surada guud ee joogta waa 31dii ayaa dhammaan ogolaaday wax diiday male wax ka aamusayna male sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay. waa maaqaadiyaad wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa waxay uga mahadcelisay senatarada golaha aqalka sare sidii ay u meelmariyeen sharcigani. waxaan sharaf weyn ii ah maanta inaan goobjoog ka noqdo ansixinta sharciga idin horyaalay. waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa guddoonka iyo senatarada soo xaadiray iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo oo arrintan gacanta ku hayay sida wanaagsaneyd runtii ay noogula shaqeeyeen isla markaasna sida baahida loo qabo anagoo ka duulayna baahida loo qabo sharcigan inaad aada noogu dedejiseen. aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. ilaahay ajir ha idinka sii aad baad mahadsantihiin. hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda qaranka ee dadka naafada ah oo iminka sugaya inuu ansixiyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa horey u soo meelmariyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona maanta ay ansixiyeen senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo bixaysa dagaal ururka al-shabaab iyo ciidamada Jabuuti ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Maxamed Cabdi Cali ayaa faafahinaya warkan. weerarka ayaa yimid kadib markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka Jabuuti ay ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. waxaana la sheegay in xoog ka tirsan ururka al-shabaab gaar ahaan guutada ay al-shabaab ula baxday jugta culus ay madaafiic ku garaaceen saldhig ay ciidanka Jabuuti ku leeyihiin degmadaasi. dad ku sugan degmada Jalalaqsi iyo hareeraheeda waxay warbaahinta u sheegeen inay maqlayeen qaraxyo waaweyn oo ka dhashay madaafiicda ay al-shabaab ku garaaceen gudaha saldhigaasi.
ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo ururka al-shabaab ayaa intaasi kadib waxaa dhex maray dagaal toos ah kaasi oo sababay khasaare soo kala gaaray labada dhinac. ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya inta ay la eg tahay khasaaraha soo gaaray al-shabaab iyo ciidanka jabuuti. war jabuuti ka soo baxay oo looga hadlayo arrintaana ma jiro. maamulka gobolka hiiraan kama aanay hadlin khasaaraha iyo xaaladda ka taagan degmada jalalaqsi, balse waxay xaqiijiyeen in uu jiro dagaal ka dhacay xere ay ciidanka jabuuti ku leeyihiin degmada jalalaqsi iyo deegaano ku dhowdhow. al-shabaab war ay soo saareen waxa ay baraha ay wararka ku faafiyaan ee internetka ay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidanka jabuuti, isla markaana ay ku dhaawaceen 3 kale oo ka tirsan ciidamadaasi. taliska ciidanka jabuuti ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa inta badan waxa uu la kulmaa weerara ay ku soo qaadaan ururka al-shabaab. iyaga laftigooda mararka qaar waxa ay qaadaan weerara ay ku bartilmaameysanayaan deegaano ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab. dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay nin soomaali ah oo loo haysta afduubka haweeney u dhalatay dalka talyaaniga oo laga afduubtay gudaha dalka kenya. ubax maxamed nuur ayaa faahfaahinaysa warkan. ciidamada ammaanka ayaa xiray mid ka mid ah 3 tuhmane oo lala xiriirinayo afduubka haweeney u dhalatay dalka talyaaniga oo ahayd shaqaale gargaar laguna magacaabi jiray Silva Romano. Ibrahim Aadan Cumar oo madaxiisa hore loo duldhigay 1 milyan oo lacagta Kenya ah ayay ciidamada ammaanka qabteen kadib howlgal gaar ah oo ay fuliyeen, waxaana sidoo kale ay soo qabteen xubno kale oo ay ku doomayaan in ay ka dambeeyeen afduubkaasi. booliska gobolka waqooyi bari waxa ay sheegeen in Ibrahim uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in haweeneydaasi la afduubto si ay madax furasho ay kaga qaataan. ciidanka booliska ayaa sidoo kale baadigoobaya weli Yuusuf Aadan Kuna iyo Saciid Aadan Cabdi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay haweeneyda talyaaniga ah ka soo qafaasheen goob ay ka shaqeynaysay oo ku taala magaalada Kilifi la yiraahdo. ugu dambeynna dhageystayaal, ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay gelinka dambe ee Arbacada maanta ah wajahaysaa cadaadis kalsoonida lagala noqonayo. xildhibaanada xisbiga muxaafadka ayaa lagu wadaa inay codeeyaan inta u dhaxeysa 6 galabnimo ilaa 8 habeenimo xilliga dalkaasi. cadaadiska saaran Theresa May ayaa imaanaya xilli 48 warqadood oo looga soo horjeedo xukuumadeeda laga gudbiyay. Theresa May ayaa noqotay ra-iisul wasaare Britain wax yar uun kadib markii xukuumadda UK ay shaaca ka qaaday inay ka baxayso midowga Yurub sanadkii 2016. tan iyo xilligaas waxaa dhaleeceen loo soo jeedinayay xisbigeeda oo ku wajahan heshiiska ka bixidda midowga Yurub ee Britain. guud ahaan dhageystayaal, warkii duhurnimo maanta waa naga intaa. cid uu seegaa dib waxuu kaga heli karaa webpage-ka internetka ku leenahay ciwaankeenu yahay radio.risala.com. إكرام كلينيك سنتا عذر هدان لدوين اللي قد يا هوينك دمر وأن نقول يا دكتورة سامنة عريف أيا دودو تقاني